دونا waxa ay guursay sacad iyo iska dhalaan لما مرت شرفته labada dhinacba waa salaamaya waan idin mahadnaqayaa anigu waxaan u hadlayaa Cabdirashiid oo ah inankayagi Cabdirashiid oo aan uga marxaati kacayo akhlaaqdiisa aan uga marxaati kacayo diintiisa aan uga marxaati kacayo karamkiisa iyo martisoorkiisa aan uga marxaati kacayo aqoontiisa aan uga marxaati kacayo dad dhaqankiisa iyo asluubtiisa ayaan halkan uga hadlayaa waxaan leeyahay qoladan inantana siisay inankii loogu boqorsanaa ayaa inantii siiseen waa ku mahadsantiin waa ku kalsoonaanaysaan haddii ay bidikeeda leeyahay haddii inanta waa inan ducaysan waxaan ku garanaynaa inay ducaysan tahay Cabdirashiid bay sahleen inta markaan Cabdirashiid kaga gudbo waxaan dhalinyarada dhamaan uu Cabdirashiid matalo ee xusbiga wadani garabkiisa dhalinyarada uu gudoomiye u yahay isagoo dalaasa aan soo jeedinaya inay waajibkooda wadani iyo waajibkooda ummadeed iyo waajibkeeda diineed iyo waajibkooda dhaqan intaba kaga daydaan Cabdirashiid inay ilaaliyaan walaalnimada wadajirka ummadda meel ay joogtaba inay waajibkooda duruuftayna haysato hadda ee abaareed iyaga dalka waxooga wixii ay ka qaban karaan inay si gaar ah soo abaabulaan dhalinyarada Soomaaliland meel ay joogaanba oo ay arinta abaar iyo duruufta taagan ee nolol ee adag ay wixii ay ka qaban karayaan itaalkooda ay isugu baaqaan ay qabtaan waxaan leeyahay haysu barakeeyo Cabdirashiid iyo Xamda ilaahay ha ka dhigo qoyskii inta ay nool yihiin ee ay nolosha ifka joogaan isku waara isjecel ubad khayr qaba ilaahay kala siiyo arsaaq barakaysan oo badan ilaahay siiyo hadii beekii lay iimaan sugan oo tubta wanaagsan haystana ilaahay uu ku daayimiyo Cabdirashiid saaxiib aanu nahay Cabdirashiid Cabdiraxmaan jaamac buux weeye maantana waa labada dhinacba waa leega yeeray laakiin waxaan siyaad xagga inta ka soo gashido de mar hadduu sidaa igu sii sheegay waa dhinac walba waan ka gudoomay de kollay waxa weeyaan Cabdirashiid oo mas'uuliyad baa maanta ku fushay adeer mas'uuliyad weyn baa ku fushay raguna reerkuna wuxuu ku dhismaa mas'uuliyadda ragga galbeedka iyaga kolkay raggu walwalaha ciyaarayo waxa la oran jiray war hooy way ka ridda weeye markii dambe ay badatay ku arkanay bay ku dambaysay galninka waa soo socoteen annaguna waana ka badan doontaa ilaa halkii aad maalintii sheegtayna waan iman doonaayo ood weyne daad mareen insha Allah waa u diyaar galoobaysaa horeyna ballanteenu taas ahayd haddaan loo baydhno xagga kale ee yar taabatay maanta dee hadduu isaaq fadhiyo annaguna waan dhanna kollay dhowal baa naga maqnaa intan waa intii kale awalba kula socotay dhowalla habre wadaagiyadiibaa maanta xaggaa ahaayo iminka way fadhiyaan oo halkan ay ka muuqdaan kollay isnay nagama fog haddeed waa xaflad madaxdii mustaqbalku ay ka buuxaan waa xaflad labada koorne ee Somaliland la iskaga yimid waxaan Cabdirashiid horta waa uu sahan tagay meel fiican wax la yidhiina kaagu wuxuu kaaga baahan yahay maalin buu hiil kaaga baahan yahay waa maalinta aad hooyadii doonaysid marka sahan dheer buu galay waana sahan fiican baan leeyahay ku khayr qabana Allah ka dhigo kullitaan waan kaaga soo horeeyo kullayta waa sahan fiican baan ku leeyahay waana jidkii aan maray waana kullayta sahan khayr qabaad kullayta guurtay Allahna ku barakeeyo ayaan leeyahay dhinac de galbeed iyo koorihii shishe
ayaa halkan ku dhan waa labadii mucaarid ee fuujarka u tartamayey codku suldaanku wuxuu ka dhawaajay waar dee inigana waa lana sugaya horta xagga waxaa jira dee kollayta madaxweynihii dalka haystay awdal inuu madaxweyne u noqdo uu iska diiday kollayta waxaan filaynaa un hadduu ilaahay ka dhigo madaxweyne noo noqo way idhaahdeen waana dad weliba xukunka jecel laakiin inuu madaxweyne u noqdo dee isagaaba diiday kollayta waxaa la filayaa un hadduu ilaahay ka dhigo inuu boqolkiiba aqlabiyaddu xagga ay u soo ciirto mucaaridka inay doortaan sanadkan hadduu ilaahay ka dhigo war inaguna ha kala biiqbiiqine codkiina mideeya caruuska iyo caruusadana waxaan leeyahay baraka allahu fiikum ilaahay geed diinta iyo dalka iyo dadkuba harsada allah inaga dhigo midna waanu sheegaya cabdirashiido ina tani waa reer sanaago waa ina sacad yoonisaho waxaan u malaynaya weliba inay jibriil xasan tahayoo nin goofafkooga iyo guryahoogaba ka soo shaqeeyey baan aho innagana xaggeena dhulku waa ku cidhiidhiyo ina tanna gobolka somaliland ugu ballaadhan bay ka soo jeedaayo meesha guurkaagaasi dibudejin buubay noo keeni hadda soo garmaysa berigii dhoweydna aad baan ugu murmayo dee raggii joogay way joogaan rag badan baa jooge waxaan idhi war meesha dee waa sanaag saan ku idhi wakaa qabrigii awgey kii ciisana wakaa kii nii wakaa war meeshan dee ma ficeegaad leedin magaceega waa la wada leeyihiin isagaajiya baan si qurux badan oo gobonnimo ku jirtana hawshaasi runta way soo gabagabaan ku bagaadinayaa intaasina ansaartaasina way noo taallaayo haddii aan la odhanayo waxa weeye way hawl meeshaas waa meel inoo bannaan tegi karno saaka markii aan soo galay baa laygu bilaabay hadalkan ima ku imika bilaabmay ma ahayn halkaasaa laygu helayoo waxaa laygu yidhi haye waxaan ku yidhi waa nabad intaasaan ku soo galay hoolka waan arkayey nin kastoo hadlayaaba inuu xagga soo eegayo berigii maraykanka boqorshaah si fiican bay u ilaalinayeenoo ayatullah laga ilaalinayayoo way suurto geli weydayoo boqorshaahbaa deg deg looga saaray dalkii eeraan waxaa lagu yidhi waxaa la weydiiyey madaxweynihii markaa maraykanka joogay baa lagu yidhi waay dee ninkan saaxiib baad ahaydeen wuxuu yidhi maraykanku saaxiibtiinoo joogtaa meel dan joogtuu leeyahay waa dan buu leeyahay marka siyaasaddan laga hadlayo siyaasaddu wakti iyo meel cayiman ma leh waxay leedahay wax markaa jooga oo ciddaad hogaaminaysa iyo danta dalka iyo umuurtaba u dana markaa meesha laga arko waxa weeye halkaasay baasho ayay degaysa war midna hoosta ka xariiqoo kelmad baryahan garxajisow haba afka ka dhawri maaye aad leedii waa marka yagii annagaba macna caloosha naga jiray tahay waa guuxayna oo raggaasi farta ay fiiqayaan oo mid meesha ku jirta waan isleeyahay waxa weeye waan jecel lahay waan soo dhaweynaynaa nacaybsho ma jiro waxa weeye cid kasta oo muwaadin oo dalkan u dhalatayna xaq bay u leedahay kursigan inay tagto dad leedii waa maalintayadii annagaaba sheegi doonee maalinta ay noo gaadho Sultaan Cabdiraxmaan halkan waxa fadhiya laba musharax iyo halkan fadhiya dabiicana waad qaadaysana kee farta lagu fiiqi waan inay ogolahay waa madal ka mid ah madalaha ugu khayrka badan leh waa reer ku soo biiray ummadda muslimka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu barakeeyo ilaahay reer barakeysana ka dhigo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa abaaraha jira iyo dhibaatooyinkana isagaa lagu baqdaayo awoodda lehe inuu inaga dulqaado waddanka ilaahay ka dulqaado ummadda abaarta gabca biniaadi maxamed taraane xogay cabdilaahi hadduu cabdirashiid dhinaciisa maray anu waxaan marayaa dhinaca xamda waxaan leeyahay waa gabadh khayr badan cabdirashiidna cid abtigii mooyaane oo halkaa soo fadhiya sheekh cabdilaahina dhaho cid iga taqaanaa way yar tahay waa wiil khayr qaba waxaad heshay gabadh khayr qabtaa haddii ay waa bini aadam wuxuuna yimaadaan xamda waxaan ka codsanayaa anaa xidhihiisii ahe
anaa qabanaya cabdirashiid cid kale oo loo doonayaa jiri mayso midna waa in yar xabad kaftanoo ma rabin inaan ku dareen laakiin waxa fadhiya dhinacayaga ragga uga awoodda waaweyn la salaadiinta suldaan cabdiraxmaan abtaan u ahay waxaa la idinka islaamka laba goor god lagama wada qaniino berigii hore waxbaanu ku yar kala tirsanee sanadka waan tirsanayaa anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida kolley maanta deegaankayga abaaraha ka jira waad la socotaan mas-uuliyiin badanoo na soo raaci lahayd abaaraha loo kala baxay abaaraha ilaahay dadka ka jabiyo kolley fariintian ka waday inaan kasoo qayb galay xafladda anaa wakiilka ah waan ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galay xaflad sida loogu dhan yahay oo madaxdii oo dhan mas-uuliyiintii oo dhan ka wada joogaan weliba gaar ahaan anu waxaan taageeraa Faysal Cali Waraabe oo aad u jecelahay bad kasta uu jeediyo ima dhaafto kaftankiisi iyo aad baan u dhageystaa waana jecelahay inaan ku faraxsanahay inaan imaado dalkaygii labaad waa statishanka labaad aan ahay waa halkan labadaba waa isku mid maanta waxaan ku faraxsanahay gaarigan jigjiga xalay ka soo baxay anoo meel la joojinin Hargeysa imid taa laftigeygu waa guul isdhexgalka iyo bulshada iyo wada noolaanshaha iyo walaaltinimada iyo deegaankaygii labaad aan jeclahay Soomaaliland oo joogo iyadoo nabada iyadoo barwaaqa iyadoo aroos ka soo qayb galay Sheekh Abdullaahi Sheekh Albeledka salaadiinta iyo madaxda dhaqanka gudoomiyaha isbahaysiga axsaabta mucaaradka ah injineer Faysal Cali Xuseen iyo dhammaan madaxda kale dhammaantiin waan salaamayaa waxaan doonayaa oo kaliya inaan u duceeyo caruuska iyo caruusadda qoyska islaamkeenu halkan maanta ku nugnay بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما بالخير إلهي قويسكي بركوبها كرديو إلهي قويسكي برواقوبها كرديو إلهي بالخير قبها كراسي ودين تودي يدل كودي والد كود بعفعة إلهي أبارها أنا هاي نقد الغاضو أولا وحسلام يا عروسك عبد الرشيد يمرودي سحمدة أيان لاهي عروس ولاكسن لمانتين بهوين تكسوق يبقى شيء مدحضة أصحابتها xildhibaanada intiina kale ka soo qayb gashay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadal badan ku dheeraan maayo laakiin waxaan ducaynayaa anaguna carooska cabdirashiid iyo marwadiisa inuu ilaahay ka yeelo qoys khayr qaba ubad khayr qaba oo dalkooda iyo diintooda iyo dalkoodaba wada anfaca inuu ilaahay ka yeegleelo haddii ilaahay yidhaahdo ka soo qaybgalayaashana dhammaantood waa mahadsan yihiin waxaan u hambalyeynayaa cabdirashiid allah barakeeyo isaga iyo xaaskiisaba بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير إلهي يسوع باركيو لبدا أين يسوع جوريني وجور شرف بدن وأذو قيمة بدن ولبا بيلود كحد داي لبا قفور دلني يرانا ليسوع جوريي سي شرف يجوبني ولا ليسوع سيي وأنا تلماما ودقن كانوا ليه وانا جيسو عادي عاد بنرنتي وقنا فرح سنة وقنا هم بلينا أنت كسوق يبقى شيء اللي بدأ الرئيسي اللي بدأ اللي يرى اللي سجوريبه ما دام عبد الرشيد هاي بدومي قرب كده اللي يرى حسبه سكارة من سجى يود اللي يرى ومدح دوية هاي وهم بلينا ودعنا قويس كم ما أنت يغيلي إلهي كده قويس اسكو برارة وعروس صالحين كلهلا ودلك دي توبان فعلها كيا سبحانه وتعالى انت waxaan ku xigsiinaya abaarta waxa weeye waxay ugu dhacaysaa waxa ilaahay wada inoo sheegay waxa isku dhacaa waxa naftiisa ay isu geysateen waxa weeye waxay naga xumaaday raximkii baa naga baabay naxariistii baa naga baabaaday sakadii baa xitaa aan la bixin ma horta waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilaahay abaarta naga qaado mid degdeg roob degdeg oo khayr qaba ilaahay nasi subxaanahu wa ta'ala aroos كعين كانوا كلوا في عين هايو وحتى حاجة مسكح ده وحقوا في عن هنا كروس بريدي كافي عن دت فوق جوسته وأنا إيه ما كرو دتك يسكن نغلقها ولا عقل ولا كسيه دتك إما واحد إلى
محمد خالد بان إلى وريا كل هذا وما كان في العسيه ورسجل إلى له سوى واحد نوقف في العون تاي موت أنا أقول واحد كان في علاه نحن نحسب مع البلد له كوع إلى قول أنا كسي في علاه مركا ويفي عن تاي حقا كلامك أنا سايه بيأرجو كفي عنته وصفير قف ممكن يهي ما كان سوق أوش شكل جورسدو وفي عي هاي فلوين إيه دونا وحاي جورسي سعد يمسكار دلارنا وين إيه دونا إن شاء الله تعالى ففي عنته هاي وحانه إيه يربان كدر ياهو بهالشان أصحاب تورت قبيلة كداية أصحابته وأصحاب قبيل ما waxaan xasuustaa waddanka ingiriiska labor baadhiga ayaa mar ra'iisul wasaare madax u tartamiyay laba noo walaal ah ayaa u tartamiyay dee lama odhan soo kala hadhan lama odhan moogta waxa weeye asxaab bayna horta qabiil ma nihin waa waddan iyo waxaanu kala nahay iyo saddex doorashaa dhacdo madaxweyne loo tartamo 2003 iyo 2010 iyo 2017 لبيك تونك يا مركو هرسي هبر يونس مشرح الله ما كان سير تقر حشيدا صوب بحري دوراتو waxaan arkay meher baan isku nimi wala ay kala guursanayso nimankan ka soo baxay waa niman reer gabiile ay weeyri abti door waan ku sugnaa gaasay sugu meesho ilaahay qabiilada isku ibtilay ma ku yiri wala qana gaasay ilaahay ballinkii la inta garxaj soo leeyihiin أنا يا أول يوم أنا نبيله برتوح من شيء سلطان كان عبد الرحمن هو يهيس أبتيو مهر كسر حلة تانية عدنا سيا أنا وقر حيتسا أنت إن عندك كذا صوك حيستو أيوة أنا وقر حيتسا وربحسن هنقد داي عبد الرحمن بحسن أروسيد هنقد داي مهرك وحيد كان كم الخاص فولس عملان تدلك كتاجن أنت أنا صوق فيه والله باقي مدة ولا وقت على الدول داي إلهي أحد يسكو عرفنو إلهي خير دلكينا كديو إلهي أمد استجعلها نقدر يبتعي سبحانه وتعالى إلهي أمد قبيالتك كتك نقدر تدين تيدي كتاب لك وصوت إلهي نقدر سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلهي مهالله سبحانه وتعالى إلهي وكريم مهالله سبحانه وتعالى إلهي قد معينك بدين السيام مهالله سبحانه وتعالى مركز بعضنا وحان ودعينا قويس كم مانتا يغيلي إلهي كدقو قويس اسكو برانا وعروس صالحين كالهلا ودلكي دين توبان فعلها كير سبحانه وتعالى انت waxaan ku xigsiinaya abaarta waxa weeye waxay ugu dhacaysaa waxa Ilaahay oo tigiino sheegay waxa isku dhaca waxa naftiisa ay isu geysateen waxa weeye waxay naga xumaaday raximkii baa naga baabay naxariistii baa naga baabaaday sakadii baa xitaa aan la bixin ma horta waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ya Ilaahay abaarta naga qaado mid degdeg roob degdeg oo khayr qaba Ilaahay nasi subhanahu wa ta'ala arooska cayn kan kale uu fiican yahay وحتى حاجة مسكح ده واحد أوفيان هنا كورس بريدي كافي أنا دت فوق جوزته وأنا أقول إما كرو دتك يسكن نغلق ولا عقل ولا كسيه دتك إما واحد إلى محمد خالد بان إلى وريا كل هذا ما كان في العسيه ورسجل إلى له سوى واحد نوقف في العون تاي موت أنا أقول واحد كان في علاه نحن نحسب مع البلد له كوع إلى قول أنا كسي في علاه مركا ويفي عن تاي حقا كلامك أنا سايه بيأرجو كفي عنته وصفير قف ممكن يهي ما كان سوق أوش شكل جورسدو وفي عي هاي فلوين إيه دونا وحاي جورسي سعد يمسكار دلارنا وين إيجنا إن شاء الله تعالى في عنتهاي وحانه إن يربان كدر ياهو بهالشان أصحاب تورت قبيلة كداية أصحابته وأصحاب قبيل ما وحن حسستها ودك إنجليزكا ليبر بارديكا أيام مرة رئيسوا السنة ما يحو ترتمي لما نور الله أيوة ترتمي ده لما أورن سوق على هذا لما أورن موت وحوي أصحاب بين هرت قبيل منهين ووطني يوحنا كلام هاي
iyo saddex doorasho dhacdo madaxweyne loo tartamo 2003 iyo 2010 iyo 2017 iyo markii horeysay habar yunis musharax noqdo markaasay hortay garxashiyadan soo baxday dooraato waxaan arkay meher baan isku nimi wala caynkan oo kale guursanayso nimankan ka soo baxay waa niman reer gabiile baa igu yidhi abti doorku waan ku sugnaa markaasay isugu mayso ilaahay qabyaalad isku ibtilay baan ku yidhi waa ilaa qanaa markaasay yidhaaheen ballinkii ilaa inta garxaj soo leedihiin anagoo iyo awalay baan odhanaa bay yidhaaheen horta waxaan sheegay suldaankan cabdiraxmaan uu yahay abtiyo meherkaasi wuxuu la taagay codna siiya anagoo garxajisa intii ina cadugada soo kaxaysto ayuu anagoo garxajisa war bahasha hanaga daayo cabdiraxmaanow bahashan aroosyada hanaga daayo meherka asxaabtana haynaga xumeynayna asxaabtana haynaga xumeynayna de haddii kalena iska dhaafno aan shirbeeladkii ku noqono oo reer sida xamar oo kale reer ku noqono asxaab baynu noqonay wala tartamaya laba noo walaalaha tartami doona insha allahu tacaala mustaqbalka laba noo isku seediya ayaa tartami doona bahasha waa fikrade aan ka dayno meherada aan ka dayno saa khadar sheegay aan ka dayno meelaha meherada siyaasadda aan ka dayno subxaana taala imaka waqtina way naga qaadataa waqti imaka intaasoo dhan haddaynu maanta camal hayno waxay tani ka markhaati furaysaa camal la'aanta dalka ka taagan intayna soo qofay wada baagamuuntayna marka waqti aan soo daayay ilaahay ha isku caflo ilaahay khayr dalkeena ka dhigo ilaahay ummad isjecel hay naga dhigto subxaana wa tacaala ilaahay ummad qabyaalada ka tagtay naga dhigto diinteeda kitaabka ku socotay ilaahay naga subxaana wa tacaala assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bismillahir rahmaanir rahiim wa bihi nastaciin ala umuri dunya wa diin madashan bilan sharfan walaalkay cabdirashiid xagga inantaa maanta la raaciyay horta dee waa iska dulqaadanaysaa maanta anugu inantan xaggeeda ka soo jeeda ee iska dulqaado waayo dee dadkii gebigoodiiba waad qaadatay oo xaggaasaad la martay isbahaysigii aynu ahayn xaggaasaad la martay marka qoladeedii cudwaan isqaybino guddoomiyihiina xaggaagan usoo dirna intayadii kalena waxaanu nidhi xagga kala balaanu tagno iyo xaaskiisa cabdirashiid iyo xaaskiisa runtii horta waxaan ugu ducaynayaa ducadii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ugu ducayn jiray madashan oo kale baaraka allahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakuma bilkhayr aw fi lkhayr intaa waxa dheer dee cabdirashiid waa laga dhawaajiyo waa nin dhalinyara waa nin mudakara waa nin intiisa runtii ka weyn waa nin aftahana waa nin siyaasiya waa nin aan isleeyahay gobolka awdal waa jawharad u soo baxay guud ahaanna somaliland waa jawharad u soo baxay cabdilaahi geeljiro waxaan ugu darayaa gobolkan awdal horta dadka ka soo baxaaba rag iyo dumar waa dad halkooda ku sharfan waa dad mudakara xildhibaan maydhan iyo xaggaa dambe marka halkiina ku sharfan tihiin waa idii ogol lahay waxa weeyaan dee jaamacadda ugu weyn waddanka ayaa ku taalla waxaan isleeyahayna jaamacaddaasi waa jaamacadda keliya ee somaliland dadka ka soo baxay bari iyo galbeed meeshay doonaanba ha sheegaan u ah dadka maskaxda waddanka u ah ilaahay waxaan ka baryaynaa jaamacadda iyo jaamacadaha kalena inuu inoo barakeeyo maamulkeeda oo maanta halkan ay nagala joogaan rag badanina ilaahay barakeeyo iyagana jazaa ka siiyo guud ahaanna reer awdal oo dhan uu barakeeyo reer sanaagna dee barakada ka hadhi maayaan iyagana allaha barakeeyo mar hadday maanta halkan iyagana joogaan waxaan kusoo gabagabaynayaa madashu madal maaha siyaasadeed waa madal dhaqan aynu dhaqanka kusoo koobno xukuumaddiina mar haddaanay inala joogin tuurtuurkeeda aynu iska dayno mar haddaan ninkiiba iskakeen celin karayn inala joogi lahaa marka halkaa aynu ku joojino aynu intaasun ugu soo gabagabayno sheekheenna weyna ilaahay ha ka siiya abaal inta uu isu soo kalifay uu halkan yimi waxaan leenahay jazaaka allah khayr alfa jazaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu